Xorriyadda maahan wax la iska helo ee waa dadaal iyo in dhiig iyo xinjir badan ilaa quba. Ma jiro waddan si sahlan ku helay xorriyaddiisa, balse waxa uu dhinta dhalinyaro u huray naftooda iska qaadida xorriyadda gumaysiga. Shirka dhacay Berlin sanadkii 1984 ayaa Soomaaliya lagu kala qaybiyay ilaa 5 qaybood. Gumeyste ah oo dhib badan u geystay Soomaaliya iyo Soomaalidaba. Dhibka oo qayb ka ahayd kala qaybinta dadka si aysan u yeelan awood wax iska dhicida, isagoo sameeyay qabiilo iyo kaba qabiilo. Qofka Soomaaliga ayaana gaariga gadaal ka raaci jiray, taas oo ah dhaqan iyo caadooyin gumeystaha. Geesiyadii xilliga u adkeysan waayay dhibaatada gumeystaha ku haya shacabka iyo dhaqaalaha waddanka ayaa waxa uu kacay geesiyiin iska celiya cadowga. Halyeygii ugu horreeyay ee gumeystaha la dagaalamo waxa uu Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Sidii taariikhdu warinayso, waxaa la sheegay sayidka uga soo degaya dekedda magaalada Berbera nin gaale uu weydiiyay canshuur, isagoona sayidku ku jawaabay, horta adiga yaa kaa qaaday markaad imaanayso. Gumeystaha ayaana u yaqaanay sayidka wadaadkii waalna Damaad Mulla. Sayidka ayaana la galay dagaalo badan gumeystii Ingiriiska ka oo lagu jabiyay gumeystayaashii la dagaalamay gumeystaha kaliya ma ahayn sayidka, sidoo kale waxaa jira Sheekh Xasan Barsano oo isagana la diriiray gumeystii Talyaaniga oo ka talinaya koonfurta waddanka Soomaaliya. Sheekh Xasan Barsano ayaana naf iyo maalba u huray iska qaadida xorriyadda gumeysiga, waxaana xiray gumeystii. Sheekh ayaana markii dambe ku geeriyooday xabsiga. La dagaalanka gumeysiga ee dadaaladii xorriyad u dirirka ayaa soo maray marxalado kala duwan, waxaana markii dambe la aasaasay urur dhalinyaro oo ay aasaaseen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaana la aasaasay 15 May 1943 waxaana gudoomiye ka noqday Cabduqaadir Saqaawud. Ururka SYL oo markiisii hore ku bilaabay SYC ayaa sanadii 1947 loo bedelay SYL. 11 Janaayo 1948 waxaa dhacay dagaalkii Hanoolaad. Maalintaas waxaa Muqdisho ka dhacay dibadbax dagaalkii Hanoolaad oo ay ku shahiideen Soomaali badan oo ay ka mid ahayd Xaawa Maxamed Cismaan Xaawa Taako, halka gumeystahana laga dilay qaar ka tirsan askartii Talyaaniga. 5 Oktoobar 1949 waxaa dhacay dagaalka Dhagax Tuur ka oo ku bilowday kadib markii ay dowladda Ingiriiska xoog isbeday bandowna ku soo rogtay. Markaa waxaa bilowda Dhagax Tuur. Dadaal dheer kadib waxaa dalka ka curmay dowlad daaqiliga oo madax ka ahaa loo naxariistay Cabdullaahi Ciise Maxamuud. dowladda oo 10 sano loo qabtay inay ku gaarto xorriyad Soomaaliya. 12 Oktoobar 1954 ayaa Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan uu sameeyay calanka buluug ee xidigta shanta gees leh dhexda kaga taal. Lixdameeyadii waxaa aad u soo dhawaaday neecawda xorriyadda iyadoona ay sii xoogaysteen dadaaladii xorriyad u dirirka. 26 Juun waxaa dhulka Soomaalida laga taagay calanka Jamhuuriyadda waddanka Soomaaliya. Saqdii dhexe xilliga 6 habeenimo ayaa fagaaraha magaalada Hargeysa laga taagay calanka buluug ee xidigta shanta gees leh dhexda kaga taal. Habeenka waa habeen ka duwan habeenadii kale, waa habeen farxadeed, waana habeen ummadda ay arkayso calan iyo ku leeyihiin. waa tii uu lahaa Allah u naxariistay abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcadde, sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegne ka nasiibka nasaar. sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegne ka nasiibka nasaar. 4 habeen kadib 1 Juulaay 6 habeenimo ayaa xarunta hadda uu ku shaqeeya maamulka gobolka Banaadir laga taagay calanka buluug ee xidigta shanta gees leh kaga taal. halka waxaa ku midoobay labadii gobol waqooyi iyo koonfur. 27 Juun 1977 waxaa iyana xornimada haday heshay Jabuuti oo xornimo ka heshay gumeystii Faransiiska. xornimada oo ku soo beegantay xilliga dagaalkii 77. maalmaha xorriyadda waa maalmo u dabaaldegaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba.